أهلا مرحبا شعب المسلمين رحب منتظرين بنترحب سابنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قونا فيه على إقامة أمرك وأذقنا فيه حلاوة ذكرك وأوزعنا فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظنا فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أيها الأحبة الكرام، waxaa jira akhdaa fara badan ama mulaaxadaad fara badan oo dhaca bisha ramadaan oo shaa'ica. waxaan insha allahu tacaala ka soo qaadan doonaan kusoo talkhiisinaynaa ilaa 15 khada oo qofka dadka maaragta ka dhaca. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih. nebigu wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam, bisha ramadaan ciddii soonta, qofka sooma bisha ramadaan isagoo oo rumaysan bisha ramadaan, isagoo ajar tirsanaya, gufira lahu maa taqadama min danbih, waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan. rawaahu lbukhaari. qofka muslimkaa waxaa maaragtaa laasim ku ah inuu barto waxa cibaadadiisa kamilaya ee qurxinaya ee wanaajinaya, si ay u noqoto cibaadadiisu ama soonkiisu si uu u noqdo mid ka maran akhdaa, aanan lahayn akhdaa. waxaan halkan taaban doonaa xalaqaadkan insha allahu tacaala 15 malxuuda ama 15 min alakhdaa shaa'ica ka mida fii shahri ramadaan, oo laga soo ururiyey waxyaabaha waaqica ah ee camaliga ah ee bacda saa'imiin ay sameeyaan, dadka sooman qaarkood ay sameeyaan. waxaanan uga jeednaa inaan ku baraarujinno inay ku baraarugaan iyo inay isa saxaan oo akhdaada iska ilaaliyaan, si ay u noqoto wiqaaya, mid maaragtaa iskaga ilaaliyo liman lam yaqac fiiha ilaa yaqacu fiiha. qof adan ku dhicin waxa laga yaaba inuu ku dhaco ayaa laga yaaba. haddii mulaaxadada koowaad aan soo qaadano, waxaa maaragtaa la og yahay oo badan dadku u badan yihiin inaanay axkaamta soonka akhrisanba, inaanay mudaalacayn iyo masaa-ishiisa, iyo inay bartaan qabla dukhuuli shahri lmubaarak, intayna gelin bisha ramadaan, inaanay baran axkaamteeda iyo waxa laga rabo qofkan, maxaa maaragtaa waajibkuga ah, maxaa maaragta lagaaga baahayay, maxaan lagaaga baahnayn, maxaa soonkaaga faasidin. waa inuu dib ugu noqdo axkaamta maaragta sharciga, waa inuu dib ugu noqdo qofku oo mutaalaceeyo, si uu ugu diyaar garoobo bisha ramadaan isaga oo garanaya wixii ka jabinaya iyo wixii ka nusqaaminaya iyo wixii aan loo baahnayn, wixii loo baahan yahay, inaa bisha ramadaan sidaa uu ku galo. mulaaxadada labaad ee dadku intooda badan ay sameeyaan waxaa ka mid a suxuurtoy dedejiyaan, afturkana ay dib dhigaan, oo laga yaabo meelaha qaarkood ilaa madowga ay arkaan aanay afdurinba. taasina waxaa laa shaka ah inay khilaafsan tahay sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitra wa akharu suxuur. dadku ka suuli maayaan khayr intay dedejinayaan afturka, ay dibdhigayaan suxuurta. wa khayru hadyi muxamedin sala allahu calayhi wasalam, hadyi kan ugu khayr badana waa hadyiga nebiga sala allahu calayhi wasalam. dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dib dhigaan wajbada cashada inay waqti dambe ay xoogaa dib ugu dhigaan,
kagana kaaftoomaan inay qaataan suxuurtii inay suxuurtaan ay kaga kaaftoomaan dembi maaha dembi kuma jiro oo dhib male laakiinse sida sunnada ah waxaa wanaagsan inuu shay khafiifa qaato timir ba ha ahaato xoogaa yaroo timir ha ahaato qabla alfajri iyo maaragta dhowr kabashooyin biyaaba ha qaatee sida sunnada inuu sunnada waafajiyo oo wax qaataa way fiican tahay taasaa maaragtaa sunnada waafajin lahayd mulaaxadada saddexaad ama waxyaaba akhdaada ka mida ta saddexaad dadkan qaarkood waxay ka soomaan cunitaanka iyo cabitaanka cunidiibuu ka soomaya oo maalintii wax ma cunayo wax ma cabayo laakiinse waxaa laga yaabaa inaanu ka soomin waxyaabo kale oo laga yaaba inay soonkiisan ay fasaadinayso maxaa ka mid a luxuum albashar xanti inta uu sooman yahay muddada qofkani uu sooman yahay waxaa maaragtaa inuu sheekeeyo ayaa dhici karta uu sheeko galo taasina ay u dhiibto ay u gudbiso inuu qof xanto fulaan wa fulaan fulaan kada wa fulaan kada hebel waa sida hebel waa sidan hebelaayo waa sidaas wahaakada ilaa iyo maaragtaa laga yaabo qowl zuur inuu ku dhaco namiimadii maaragtaa inuu dadka warka u kala qaado oo hebel baa sidaa ku lahaa beenta cayda waxaa iyo waxay lamida min aafaati lisaan nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamalu bihi والجهل فليس لله حاجة في أن يدع دعامه وشرابه رواه البخاري نبي وحده صلى الله عليه وسلم قفك آنا كتج قول زور قول كما ركتها زور بينتا يا إنه عمل فلو يا إنه جاهل نمسهمي وحل وحلاهي ودنك ليه مجرتين وكتج عمتديسي عبيتانكيس واحد صحيح مركا هل كان لقيا بأن كدر دنسنو maadaama qofku waxyaabahan uu sameeyey dee waxba soonkii uguma yaalin ha iska cuno ha iska cab dadka dhexdooda ha cab dabcan taasi uma banaynayso oo maaragta dadkii dhexdooda in iska cuno dad baan xantay oo been baan sheegay oo maxay ahayd aanay dembi baan ku dhacay marka waan iska cunaya iska cabaya maaha sidaasi laakiinse waxa maaragta loo bayaaminaya in uu ka tego waxyaabaha keenaya xanta iyo wixii lamida kabacdina iskaga faaruqo waxyaabaha hadduu arko majliska u fadhiyo si ugan u nabadgalo soonkiisu inuu ka maaragta inuu iskaga kaco billahi tawfiiq wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in